ninka taqtay maqasheen nabi ilaahay Muuse markii ninkii qabdiga ahaa iyo ninkii bani Israa'iilka markay islaayeen ayagoo islaynaya intuu ku soo baxay ayuu ninkii qabiilkiisa ahaaba wuxuu ka codsaday inuu caawiyo si xun asagoo mataqaana u raranayo cadaabaya nabi ilaahay Muuse marka ninkii wuu caawiyo hal feer uu ku dhuftay ama ul labadoo tafsiirka uu dhahaa ninkii sidii ku dhintay nin xoog badan buu ahaa oo qawi ah nabi ilaahay Muuse uu ahaa maalinkii labaad nafsul qissa ninkii asaga ahaa say riwaayo tafsiirka barkii culimadu dhahaan oo sidii loo rafaadinayo ayaa ku soo baxay waad garanaysaan qissada inuu halbigareeyo ayuu codsaday waxa dhacday marka nabi ilaahay Muuse wuxuu damcay inuu caawiyo qisadan iyo qisada ay dadka daqaaqayga ah ee inaga dhashay way ishabahan aad isku yihiin marka inaad ila fiirsamaan raba wuxuu damcay nabi ilaahay Muuse inuu caawiyo ninkii oo qabiilkiisa ah ee la rafaadinay inuu caawiyo damcay marka ninka kayiska marka laba nin oo isgarab taagan nabi ilaahay Muuse xagga kii qabiilkiisa ahaa ee uu rabay inuu caawiyo ayuu u batay say labadooduba u moodaan inuu ku socdo oo saninkan u baxsanin ninkii marka caawinta dalbaayay nabi uu qayliyay war Muuse oo shalad nin dishay ma idilaysaa buu dhahay maanta aan maana idilaysaa saadarteed waxaan dhihi karaa nimanka hadda oo daqaaqayga ah ama nimanka oo taksiilayaasha meelahan ka tagay ee Ethiopia ku laabtay waa sidoo kale jabada ONLF xabada waxay u qaaday shacabkeeda inay difaacdo xorriyadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda adduunka inay la simaan ayaa hubka u qaaday waxay u sumaleeyeenba inay ONLF ayaa ku socoto waxay sumaleeyeen ONLF marka waxaan dhihi karaa waa awbaashkii nabi ilaahay Muuse uu rabay inuu caawiyo doqonkii oo kale limid yihiin marka idinkayna luma socday kaarad ku dhacday أبدي حرودو آمين waxaan maartay bogaadinayaa oo u soo jeedinayaa ciidamada gobonnimadoonka gobonnimadoonka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya waxaan leeyahay guuleysta sharaf iyo dadnimo ayaad noo yeesheen haddaynan ayna jiri lahayn ciidamadaas waxaan filayaa inaan maanta meesha aan naallo meel ka sii hoose aan joogi lahayn marka waxa weeyaan waa wax lagu faano waa wax la dhihi karo mataqaanaa sharafta kaliya ee maanta aan leenahay waxa weeyaan halganka ree ogaadanya ay ku jiraan ay ku doonayaan muddo dheerna ay ku soo jireen in ay ku raadiyaan xuquuqdoodii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ilaahayna waxaan ka baryahayaa kuwii guusha dhaliya inay noqdaan waqti dhow oo lagu barwaaqowdo inay noqoto taasaan ilaahay ka baryaynaya ha guulaysato jooxa idinkuna guulaysta midda labaad waxaa weeyaan waan rabay inaan inii sheego dadkii soo qabanqaabiyey jaaliyadii soo qabanqaabisay waxaan ugu mahadnaqahayaa sida sharafta badan iyo xushmadda iyo agaasimka ay subiyeen xafladan quruxda badan waa jaaliyadda San Diego sharaf ayaan leedihiin waxaan leenahay ha ka daalina halganka aad wadaan oo ah sida dalkiinii iyo ummadiinii iyo qarannimadii ree ogaadanya aad u soo dhicin lahaydeen ha ka daalinaan leeyahay guulaystaan in leeyahay intaa ka bacdi walaalayaal waxaan ii sheegayaa reer San Diego waxa aan ku jirno waxa weeyaan waa waqti xasaasi ayaan ku jirnaa saad oo la socotaan waxaa jirta in halgankan uu muddo dheer soo socday maantana wuxuu marayaa meeshii u dambeysay ayuu marayaa marka waxaan soo jeedin lahaa intii ku jirtay iyo inta hadda ka maqanba in aad garbaha isqabataan oo nin kastaba wixii hore u jiray intuu iska hilmaamo in aad halgankan ku soo dhawaataan meel fiican buu marayaa waad mahadsan tahay xiriiryaha West Coast aad baad u mahadsan tahay gobaabadaas iyo soo dhaweyntaas
haddana barnaamijkeenu halkiisa buu inooga sii wadanaya insha allah waxaa ina sugayaa afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadenya oo muuqaal inagala soo qaybgali doono shirka inta ka horeysa laakiin aan kusoo dhaweeyo cabdiqaadir colaad oo isaguna barnaamijkeena qayb ka mid a qaadan doono haddii la yidhaahdo waanad mahadsan tahay cabdiqaadir kusoo dhawow. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ogaadenya ha xorowdo, ogaadenya ha xorowdo, shacbiga ogaadenya ha guulaysto, ha guulowdo, ujeedadiisa ha gaadho. waad mahadsantihiin idinkuna. waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo halgankan iyo sida uu ku bilowday iyo soo jireennimadiisii wakhtiga dheer ahayd. saaad ula socotaanba geeska afrika waxaa ka jiray loolan halgan oo xoog badan ilaa qarnigii 16aad. axmed gurey waxaa ku xigay sayidkii darwiishkii, waxaa ku xigay mataqaanaa xisbigii nasrullaahi, ururkii siyaasiga ahaa 64kii. waxaasoo dhan waxay ahaayeen isku jid bay marhayeen. ururkii siyaasiga ahaa ee kale 77dii jawxo oo hadda maanta joogto oo ka dhalatay dambaskii WSLF. intaas oo halgana waxay wada marhayeen hal jid bay marhayeen, hal ujeeddo bay ku wada socdeen. dadka Soomaalida ah wacyigiisu aad buu u sareeyay xilliga hore, laakiin waxaad moodaa xilliyadan dambe dad xun baa sare soo maray. waxaa la rabaa marka taariikhda halganka ee saa u soo jirtay haddaan wax yar ka soo koobo marka tii jawxo oo aanu intaan dahnaqaadka goobjoog ka ahaa. jawxo waxaa la aasaasay 1984 bishii 15 markay taariikhdu noocaas ahayd waxay ku abuurantay 6 qof baa aasaastay markeedii hore. 6dii qof ee aasaastay waxay u fikireen in bulshada ogaadenya iyadoo oo la fiirinhayo Soomaaliya iyo Itoobiya oo markaas isku soo dhawaaday siyaasiyan, maadaama wadankii Soomaaliya uu dagaal galay laga saftay oo Itoobiya ma taqaanaa lagala saftay, siyaasadii Soomaaliya ay wiiqantay, waxay noqotay dawladda Soomaaliya inay markaa danaheedii waxoogaa yar ilaaliso oo ay hamigii Soomaali weynta ay ku jirtay ay dib uga gaabato. tii marka ay dhacday dadkii deed wadanka ogaadenya u nasab sheeganayay way cuntay weyday arrintii. markii isku soo dhawaanshihii uu dhacay ee Djibouti shirku ka dhacay ayaa waxaa la fikiray in la qaato halgan madax bannaan oo aan cidna ku tiirsanayn. ayaa waxaa la damcay in dadka si hoosiyana loogu abuuro waxan iyadoo laga iska ilaalinayo dawladdii Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. dad waxaa la sameeyay indheergarada oo si qarsoodi ah lagu abuuray iyadoo xilligii aan loogu talagelin la gaadhay ee jabhadu ugu talagashanay inay ka dhigto mataqaanaa war xawaalana xaabka iska qaad ayay labadii dawlad burbureen. markay labadii dawlad burbureen waxay kaliftay markaa in jawxo oo ku tashanaysa xubnaheedii yaraa ee qarsoodiga u ahaa inay la jaan qaado wacyigiis bedel geeska Afrika ka dhacay. waa tii Addis Ababa la tagay, charterka waa kii la isla saxiixay. Itoobiya dadka markaas qabsaday waxay ahaayeen dad u xeel dheer nidaamka siyaasadda Soomaalida because jabhad bay ahaayeen. dad Soomaaliya dhex joogay bay ahaayeen. dhaqanka Soomaaliya dad darsay bay ahaayeen. dawlad Soomaaliya oo macno lahood joogtay inay jirin way arkeen. mar hadday marka iyagu chance heleen oo wadankoodii uusan ka burburin sidii kii Soomaaliya oo kaleete waxay ku talagaleen in dadka Soomaalida ay ka xushaan ama tii xortayda noqoto ama tan ay gumaysanayeen ha noqotee inay ka xushaan dad yar oo tayo xun oo aan macno lahayn inay raadsadaan oo ay iyagu ku adeegtaan oo danahooda u fuliya. tii nooca ahayd markay dhacday jawxo waxay fiirisay systemkii. waxaa la doortay oo markii hore la doortay mataqaanaa shirkii Garbaa la isugu yimid 92dii waxaa la doortay gudoomiye buuxa markaa si xisbigii dhidibada loogu taago oo loo sameeyo nidaam shaqeynaya oo ka howlgalaya gobolada iyo degmooyinka dhamaanba. tii nooca ahayd markii lagu guuleystay ee nidaamkii jawxo ay samaysay ilaa nimankan jawxo bay ahaayeen markiiba waxay fahmeen hadafka jawxo siduu u shaqeynayo. markay taas ogaadeen iyagoo ka faa'iideysanaya aragtidoodii Soomaalida ayaa waxay sameeyeen dadkii ogaadeen iyo dhexdiisa ahaa inay ku dhahaan war qabiil walba oo samaysa mataqaanaa urur because ilaa way arkeen meesha aan u nugul lahay systemkii nooca ahaa. markay jawxo aragtay waxay ka hortago oo ay samaysay wuxuu ahaa inay is ururiso isla markaana dadka Soomaalida ah oo aan ay aragtay ujeedada Tigraagu inaynan la qabsanin inay fahansiiso.
tii nooca ahayd marka ay dhacday waxaa dhacday in baarlamaankii iyo doorashadii la qabtay markii tii la qabtay doorashadii Jowxo waxay ku guuleysatay iyadoo bisaylkeedii iyo waayarinimadeedii haysatay yaa waxay ku guuleysatay 85 nidaamkii nooca ahaa ee jiray waxaa jiray marka charterkii Addis Ababa la isku saxiixay oo qeexayay muddo 2 sano ah haddii jiritaanka Itoobiya inaad ka sii mid noqotaan qowmiyadii ku qanci weyda in baarlamaankeedu uu afti qaado tii nooca ahayd marka ay dhacday baarlamaankii shacbiga ogaadeenaya oo ahaa baarlamaan tayo leh markaas oo baarlamaanka kaliya sida fiican loo soo doortay ahaa iyagoo oo fahansanaa dhibaatadii geeska Afrika iyo sidii wixii soo jireenka ay taariikhiga ahaa ayaa waxay go'aansadeen inay ka faa'iideystaan jaaniskan isla markiiba shir bay qabteen waxay isku raaceen waxaan maleynayaa 17 inay ahaayeen hal qof baa ka aamusay 116 kale waxay isku raaceen Itoobiya ayna ka mid noqon karin isla markaana dawladda dhexe ay u diyaariso mataqaana wax la yiraahdo ay afti u diyaariso because charterka markii hore wuxuu ahaa la saxiixay Addis Ababa lagu saxiixay in marka baarlamaanka qowmiyaddu uu isku raaco la sameeyo baarlamaanka federaalku inuu sameeyo muddo 3 sano inuu ugu diyaariyo afti Tigreegu marka ay taas ogaadeen waxay sameeyeen marka inay istaraatiijiyadoodii bedelaan laba shaqo marka isgarab socotay loolankii Jowxo iyo kii Tigreega Jowxo inta ay Tigreegu istaraatiijiyad kale sameeyeen oo kililkii inay afgambiyaan ay isku dahayeen waxay isku daydeen iyaduna 13 urur ee Soomaalida ahaa ee qabiilada ku dhisnaa inay ka dhaadhiciso waxa jira muuqaal oo caadi ah bay shir la gashay marka ay shirkii la gashay waxay ku qancisay dadkii Soomaaliga ahaa wixii jiray 13 urur baaq bay soo saareen in aftidaas siday tahay loo ansixiyay tii markay arkeen oo dadkii ay ku baqanayeen laftoodii in laga la wareegay ay arkeen ayaa waxa la yiri nidaamkan siyaasigu hadii uu sii shaqeeyo oo dadka uu bisayl geliyo waxa dhici doonta in Itoobiya jiritaankeedu xitaa inuu halis galo haddaba waxa weeye maadaama aan ciidan dhisan leenahay nimankanuna ayna tabar haynin waxa ay isticmaalayaan oo ay tahay xeelad iyo bisayl siyaasadeedun aan burburin durba horta nidaamkan dagaalka ee bilowday ka bilowday mataqaanaa ogaadeenaya sida ku bilowday sidaas ahayd warqadabkii aad dhigteen iyo charterkii la isla ogaa ee caalamku marxaatiga ka ahaa ee safaaradii Addis Ababa loo qaybiyay sidoo ahaa loo fuliyo iyo loo fulinayo dagaalka halkaas ka dhacay dagaalkii noocaas ahaa marka uu socday xilligaas iyada waxa dhacday in Jowxo ay adeegsatay xeeladeedii jabhadnimo inkastoo tabarteedu ay ahayd markaas mid liidata ciidanka Jowxo xilligaas 260 baa dhaqaalaha sheegin waxay Jowxo soo saartay qofku marka uu wax sameeyo waxa la rabaa wuxuu ka duulay inuu sameeyo 3 qodob baa la soo saaray 3 qodob waxay ahayd midnimo iyo isku tashi inaan mitidno oo aan adkaysi yeelano oo aan noqono dad wixiisa meeshu galaba ka daba gala dib kasta oo loo geysana tunka u dhigta inayna ku tashanin dad kale ta wuxuu ina siiyo ee inagu aan isku tashano oo wax weeyaan shacbiga ogaadeenaya iyo xoolaheena ugaadheena iyo midhaheena in lagu tashado qaabkii nooca markay u dhacday isku tashigiina dadka midnimadiisa in la ilaaliyo oo dadkii wax weeyaan midnimadiisa in la ilaalino oo aynu sida aynu nahay u shaqeyno oo aynu noqono dad macna leh oo jiritaankiisa raadsada systemkii nooca ahaa iyo rafaadkii dhacay iyo burburkii iyo dhibaatadii dadka soo gaadhay sida runtii waad aragtaan meesha ay marayso xilligaas iyada dibadda waxaan u maleynayaa 2 xubnood 3 xubnood ka badnay wax dibadda jirayba dadka ogaadeenaya ee wacyigan aaminsanaa markaas guduhu ku wada jiray ciidankuna intaan idin sheegay baa kaadarku wuxugaa uu yar koobnaa laakiin dad dhalinyaro waxay iska ahaayeen iska uun shacab oo siyaasiyan u bisle aan nidaam ciidan u bislayn inkastoo markii dambe uu ciidanka ay ku fayleen oo ay dagaalkii galeenba qaabkii nooca ahaa ee soo jireenka ahaa meesha uu marahayo iyo heelka inuu soo gaarsiyo wada aragtaan wax weeyaan mar kasta oo uu dhib jiro dhibkaas wax ka dhiidhiya waa uu heli Soomaalidu waxay tirahdaan dab jirin qiiq ma baxo Itoobiya dulmi ay inugu haysa daraadeed baa intaas oo halgan soo daba socdeen ilaa inta uu dulmigu jirana xitaa Jowxo haday baa baxdo kuwa kale ma sii soconi qofkuna waxa weeyaan
maalin wuxuu sheegay yar ciidanka waxaan warbal dadkii ka waran markaas uu yiri soo meel yimid aan ka wareysanay wuxuu yiri waxaad moodaa dadka goolada jooga inay isku heer marayaan marka tiraahdo buu yiri reerahaad ku soo baxda waxay ku dhiib yiri waxay ku maamaayo reer maalin buu reeran yahay ama aan baabaan ama arinta ka meel dhaliya waa dadkii gudaha joogay ee dib ku dhacay waxaad samoodaa dadkeena banaanka jooga wacyiga noocaas inaan ka dhacsanahay bisayl laan badan baa inaga muuqata danteenu meesha ay ku jirto inaan wax ka faa'iidnaa la rabo wadamada aynu nimid wadamadan dadkan aartoona dagaal bay ku xoroobeen qofku marka waxa weeyaan marxaladiisa inuu isagu meesha ay jirto ogaado oo uu raadsado oo dadnimadii bini'aadamka inuu ka mid yahay inuu isku dayo oo aan neeshi noqono oo dad fikiran noqono oo aan macna yeelano innaga laga rabaa inay naga timaado markaan taas aamino baan inagu dad wax u qaban karaa waxay marka ila tahay taariikhdeena soo jireenkeeda nooca ahayd dad walba oo jiil walba oo markaas kaca dadkooda iyaga ama guul darro u horseeda ama faa'iido u horseeda yani faa'iidadii iyo khasaarihii ogaadeenya innaga inugu jirtaa ruux walbana meesha uu joogo inuu ku tashada la rabaa dadkeenu hadduu taa aamino Itoobiya iyo macnaheeda iyo qaabdarrideeda reer galbeed iyo cid ay doonayaan ku tirsanaato dadkan aad aragtaan oo dhan waa danaystay hatta reer galbeedka laftiisa markay arkaan dad wax qabsanaya inaad tahay wax weeyaan iyaga ku soo raacay waxay dhaheen masradan xisbiga qabsaday waxay Mareykanku ku dhaarteen waligood inay la kulmeen maalinkay hadda ku guuleysteen inta yalan ka duuleen bay ugu tageen qofku markuu wax noqdo horta wax iska dhigo wax laga dhigi laakiin ruuxu inta uu geedka hoostiisa fadhiyo ee uu dhibka ka maaganayo wax qabad ma noqon doono insha Allah ilaahay samirka kuwa inagu sugahay naga dhigo danteena gaadha arrinteennuna waa inay noqoto qof walba inuu isxilqaamo sidaasaan isku ognahay oo ballanteena ay noqonayso jaa waxa guulaysato ogaadeen yaa xorowdo waad maasantiin Nabad la waayana kastaba noqotay
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb qaadataan this event. Magacayga waxaa waaye Huda Cali Axmed, waxaan ahay xogeyaha for OISU San Diego and OISU North America as well. And maanta waxaa rabaa inaan ka yara hadlo project cusub that OISU San Diego in collaboration with Jaaliyadda of San Diego oo mar dhow hadda isla bilaabnay. And before I get into that project, waxaa rabaa inaan ka yara hadlo OISU San Diego, or I mean OISU as an organization. So OISU stands for Ogaden Youth Student Union. And sababta OISU loo bilaabay is in anaka hoosha qabno jaaliyadaha ay jabhada qaban karin, in anaka dhinaca kale ka dagaalno. As dhalinyarada af Soomaalida reer Ogaadenya, in anaka dadkan cod u noqono oo dadkan schoolka la dhigano oo macallimiintan and our professors and dadka la shaqeeyno ina dhibaatada dadkan haysina u sheegno. And in that sense, it's going to raise awareness. And for us to raise local awareness, make sure that everyone within the San Diego community and within the world as large is aware of the genocide that's going on in the Ogaden. And then from then, inshallah, within the awareness, it's going to also lead to advocacy. Advocacy in how political and policy change, which is our ultimate goal, inshallah, is to go to our congressmen and our politicians and to demand for them to take into consideration and to put above the human rights violations being committed by Ethiopia over any allegiance that they have with Ethiopia. And we as U.S. citizens have the right to do that. And in the front also in our registration forms for people that can vote, that have never registered to vote. Please, make sure that you guys register. That's the only way we're going to bring about any sort of real tangible change. And inshallah, those are the goals that we have in the future, is to have advocacy and policy and political change. waxaa kaloo iyadana diyaar inoo ahaa foomamka lagu codeeyo ee lagaga qayb qaadato doorashada kuwa localka ahaa sida mayorka oo kale ama city councilka oo kale ama maxay ahaydey national electionka caadiga ah baa iridda yaala dadkeena inta citizenka fadlan hal is register gareeyo waxaan raad inoo ah keli ah inaynu codayno haddii aadan codaynin wadanka raad kuma lihid xaqna kuma lihid marka dadkeen citizenka ah laga faa'iideysto si aynu saameyn ugu yeelano siyaasadaha wadanka local iyo national labadaba si aynu ugu yeelano haddii la yiraahdo cadowgii ummadda Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa waxaanu soo maray u soo nooleen dhowr cadow oo isbedeshay isticmaalkii intuu gacanta noo geliyay mar walbana ku tumanaya xuquuqda iyo muxuu ahaa jiritaanka ummaddaas ku tumanaya kuwaas oo ay ka mid ahaayeen boqor Haile Selassie waxaa ka mid ahaa kii ka dambeeyay anagu aantaan goobjoog waxaan ugu horeeyay kama sii hadlayno waxaa ka muxuu ahaa Mengistu waxaa ugu cadowsanaa intaba inta cadowna soo martay ee ummadda dhibaataynaysay waxaa ugu cadowsanaa kan maanta baqtiyay ee aanu muxuu ahaa ku reereynayno ku faraxsanahay qabrigana Allah ku cadaabo aan leenahay gaalku qabriga Allah ku cadaabo isagiyo meeytidiiba qabriga Allah ku cadaabo kaasaanu aad ugu faraxsanahay kuna reereynayna waxaase nasiib darro ah ummadii Soomaaliyeed inay ku muxuu ahaa u duceynayso qaarkood u ooynayaan qaar madaxa ay qabsadeen aad moodayso hooyadood iyo aabahood in muxuu ahaa geeridu loo soo sheegay siday madaxa u haystaan markaad aragto waxaa weeye waa nasiib darro ummad Soomaaliyeed cadowgoodii inay garan waayaan maxaa dhacay ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanay halgan waxaa lagu yaqaanay geesinimo waxaa lagu yaqaanay mitidnimo waxaa lagu yaqaanay inay ummadda Soomaaliyeed marna ayan qaadanin xumaato iyo gumaysi iyo rarasho ayan qaadanin sida awgeed waxaa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa inaan dhaqan roganay dhaqankii Soomaaliyeed in la rogay oo la baabi'iyay baad moodaa oo ay soo baxeen canaasir aaban rarkaba ku faraxsan in la raftaba ku faraxsan maxaa dhacay Sayyid Maxamed Cabdullaahi Xasan wuxuu yiri marka hore adigu sidii dushu ka raran sida dameeraha marka dambe sidaas uu ku gali hadda waagaas uu sayidka ka hadlayay sidan muusan ogeynba sidan baaban hadda siduu sheegay yaaba soo baxday lafteedii baaba noo soo baxday oo dushii baaba laga raan raallina aan ku nahay oo aanu ku ogolahay in ummadeena lagu baabi'iyo marka waxaa weeye waxaasi wali uma dabcayno annagu haddaan nahay jooxa ama muxuu ahaa ummadda reer Ogaadenya marna uma dabcayno isticmaar uma dabcayno waxaa weeye waxaasi wali uma dabcayno annagu haddaan nahay jooxa ama muxuu ahaa ummadda reer Ogaadenya marna uma dabcayno isticmaar uma dabcayno waxaa weeye waxaasi wali uma dabcayno annagu haddaan nahay jooxa ama muxuu ahaa ummadda reer Ogaadenya marna uma dabcayno
waxaanu qaadnaa ama halganka wuxuu yidhi maalin dhoweedba waxaa weeye London lagu qabanayay shucladii waxaa la wareejinayay Olympic Gameska shucladaas annagu tii aan ka soo qaadnay Axmed Gurey yaan weli wadnaa mana dhigayno ilaa aan xornimo ka gaarno waxay ku dhammaan doontaa markuu ka nabaktiyay kuwa kalena ay cabsadaan oo sida la sheegayo way burburayaan aynoo kula burburaan calankii iyo shucladii aan ka taagno magaalooyinkeena qiimaha leh iyo gabdhaheena qiimaha leh ay suraan maalintaasaan anagu muxuu ahaa ummadeenu aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay reesindeega haddaan nahayna wax badan baan isliidaynaa oo saynaa wali waa liigaysaan oo si fiican ma tihiin haddana San Diego ku dayashada meesha wax laga daydo way haddii la yiraaho maanta waxaa weeye ururkan wuxuu ka dhisan yahay rag iyo haween meesha kaliya oo muxuu ahaa inta dibadda loo soo baxay ka dhismay oo muxuu ahaa lagu faani karo San Diego ahayd haweenka ururka Jooxo oo laga dhisay San Diego taasi waxaa wadnaa shucladii baan anagu sii qaadno kow ninbaa waxaa laga sheegay reer xamara oo u yimid madaxweynihii Soomaaliya yaa wuxuu yiri jaalle madaxweyne idinku waad halgamayseen Soomaali markaad heedeen waad halgamayseen annagu saadaan reer banaadir nahay oo muxuu ah dadka cadcadaan nahay waan laba gamayno markaas wuxuu u qaatay hal dhagaxoo la tuurayo annagu reer xamar haddaan tahay laba aba tuurayno ka wadaa laba dhagax hatta adigu waxa tuuraysa buuri muxuu ahaa waad halgamaysa buuri laakiin annagu waan laba gamayno marka reesin Diego haddaan nahay mar walba waan laba gamayna 12 kun oo ciidan oo dheer ah jigjiga keeneen 6 kun xuduudka u dhaxeeya Garowe iyo Hargeysa keeneen inta in laagna mooyaaliya baashiba keeneen wixii laga cabsan Eritrea xuduudkeedana ciidan xoog leh isla geeyeen labada qolo ay ka cabsanayaan waa shacbiga Soomaaliyeed ogaadeenaya iyo dagaalka Eritrea kula jiraan haddaba xuduudda oo ka cabsanaya ciidan ay wayaanu yaqaanaan marar badan waxa dabaqoodii ka maqasheen inay dhahaan laba inaga islaynayso oo hadda maxay booliis ba dagaalamay Ethiopia ma dagaalanto faan weynaawi maxabada Ethiopia waad kaysay oo mid Soomaali oo laba qalbileen ayo qayile oo surwaalku dhan u furan yahay shaarkuna kuluusida u furan yahay qoriga jiidayo xilin karaad malaysa xabada Ethiopia waad kaysay weeday 60 sano iyo 70 sano ku dagaalameysay Hayle Selassie ku dul ooyay midil ku hamiyay dhiiggiisa ku daadiyay taangiyo u soo amaahday malase muxuu ahaayay inugu maagay aan isku qardoofnay fooda la isku daray markaas ay afar Soomaali ah inaga hor joogi karaysa aad malayn oo reer ogaadeen iyo oo muxuu ahaay calala barabarada loo xidhay waxaan ka socdaa Addis Ababa xalay ka yimid waxaana la ii soo diray hawl baan u socdaa qolyaan la kulmahaya halkan la igu soo diray aaway gudoomiyihii qurba joogta waay gudoomiyihii qurba joogta tafsiilayaasha qurba joogta waa ka gudoomiye farxad baa idinka muuqatay miyaydaan ogeyn inuu dhintay halyeyga Afrika oo halyeygaasi waa kuma halyeyadii Afrika inay dhamaadeen bal u maleeyay mid cusub baa yimid waryahay dhageysta Addis Ababa hadda ka yimid qowmiyaadkii Ethiopia oo dhan yaa waxay isugu yimaadeen Borordiiq dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia number 1 bay gashay xagga oohinta iigu celi Buraanbur oohin wali ma maqasheen Buraanbur oohin ha xaaska bal sanaawi hal weydiyo annaga baray waa horumar aanu gaadhnay way u kaadi war dhageyso aan ku dhameeyay dhageyso miyaad aragteen roob daay oo dhoobadiisa saa lagu galgasho flik yaa aragteen أعوذ بالله horumar aanu gaadhnay way dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia horumar aanu gaadhnay way hadda waxaa la idinka rabaa okay ana gudoomiyana ku wax ma yaqaanaan fiir gudoomiye nimanka sakaraadka ana horta mas'uulka oo qoliya xaq ugu yimid qoliyii waagi xaq aanu ku casuunay way waa qoliya aad casuunteen waxa casuumad ma intaasi waa ku aad casuunteen way waa ku ragana qurux badan hadda ka way baabeen waa ku ma garad sax marka
bal hadla waxbaa sida ka idinkanay hadalkoodan anugu ma doonhayo dhegeyso waryaa waxaa laydinka rabaa inaad hadda baroordiiq inaad samaysaan baa la rabaa baroordiiq oo sidee ah baroordiiq yaa laydinka rabaa qowmiyaadka gudaha way soo baroordiiqeen awey isii bacdi awey war maxaa loo baroordiiqayaa bal wax noo sheeg dhegeyso halyeyga afrika dhinta awey halyeyga afrika maxamed siyaa laba maxamed أنا مسؤول كاه دقدقين هذه واقف سادر ما لبدي هليي لبا محمد هليي كدم بي ما جري ولا هليي ما إثيوبيا هليي كوه علىك قاضي برا قاضي سو قاضي العكس سو قاضي وريا قاضي ده تو ما بقر بصاري ورقاته وعلك هو ذا قربصاري waxay tahay maxay maxaa lagu sameeyay هو ذا oo ka waa calanka Itoobiya madaxa saaranaysa inagu ma weemaan anagu waxan waa lagu baroordiiqaya buwaagtana kuwa haweenka loogu talagalay ku ragaawe ما هرت خاطر إنك وقت هاللينا يدوك أوكي خاطر هاللينا سود الدواء هاللينا هي ركاد أنا وتصديق تص هذا وهذا قدومي فقولين تيجي كلا إذا كمان يسوي قدوي بلغات سمين الهيل سود الدواء هرت سك بوكنا وكيل بروديق وكيل تعصيد وي بوكنا والقاعدة سان مقالة ولا ما مريسان شق سكستا وين تكسب أضيع مسبار مدح صار مستقر بقى هل بيل والبصارت هو كان محمود النوال كذا مدح كوحدة ما كتابة أبصر دقيقة ناقي وأنت العقد الجزء جرا ومرة ما ذا دقيقة أنا ترى المدح صارت وين بوجه تحسيد سوب حسان تحسيد مجال دعاء يوحول وين لو صغر بوجس إلى جسوا محمود يسأل له ودعين يسأل له ودعين محيط هاي وابا إهلو تشنه نبي جيبا ودعي نبي يا ودعي وني هذا موضوعات هاي نبي قلت تبكي وياك جوجي يقول كي ودعي لكن خليها هذا خرب اللي ودعي وحكى لصارة واحد كان يتبع الروح كسر النبي ويدعي واحد يدعي يخليها المال هذا الجوجة ولا سؤال هرت سؤال هذا هاي تبي سؤال هذا هاي تبي هرت بالإيميل كاجا يغر إيميل كه إيميل كاجا يغر أخر كاجا أخر إيميل ولا يوم سمعنا حاجة.com حاجة.com وإيميل كه أدورنا إيميل ولا يوم سمعنا إيميل.com سكنا أنا إيميل.com ها شكلها صار كده أنا هذا واحد قال سو حريرتان YouTube.com halkaas aad igu soo diraysaan waxa la wixii loo baahan yahay halkaas aad igu soo diraysaan waa email-ladii waagi aan idin qaybinay markaad noo timaadeen aniga wali igama aan jawaabin maxaa loo tacsiyeenaya maxaa laga jawaabay soo qaado waxa loo ninkaad waagi u tagtaa loo tacsiinaya hal jawaab soo haliyayga Afrika hal nin weyn iska dhigna waxa weyn yaa dhintay wari aniga kan maxanuusan yahay bise waa nin weyn ana u sharxi adeer waagi Soomaaliya tagin waagi waa tagnay soo laguma martaqaado inta isbitaal dad xanuunsan laga bixiyay Soomaaliya laba maragina kibirsana wari kaadi noo sheegay yaa dhintay inoo adeegan suuxdimaha qabaan ku jawaab bulkaadi adeer waxaan ku yiri waagi Soomaaliya tagin isbitaal dad xanuunsan soo laguma bixin oo martaqaad oo talabari aad ku qayilaysa waa tahay wixii dhintay ii sheega ونيجي سلام هذا دنتي سلام دنتي إنا لله وإنا إليه راجعون الله دعويك كذا الله محقال دعوة تاس إنا لله ودعاء سما الله محقال يا هذا الكيك دقيسته هيه ما أنتورنا الموحد إلى هيد الله أقولنا حريسته إيوه إلى وحقول النبي مسلاوبة هذا بالقول عين بيات دعاء إذا دقيسو تيدا صح يا دعاء إذا دقيسو تيدا دقيسو أضيع في دمرت أدمود تعال هرت تيدا دقيسو دقيسو أنا كل شيء نكر هو بختي وكداي أنا قلنا أنا برا إلى قبل أنت حد هو بختي أنتوا ولا قاعد بسولني موت ويا دعاء إذا بدك سنة أنا برا عذبت الله كل رأي ويا تيدا دقيسو هذا برسوح ويديني هذا برسوح يريك هذه أورا لعل آخرها بالتقي آخرها اللي تقي آخرها اللي تقي حدي آخر نكى سجى ونقول فرفيق
نصيب بدي ما أنا آخرك وأركب ما وردني هذا يقول بلوكادي وقوينا حتى آخرك وأركب بلوكادي فيري يا حرام كان أدعي horta waxna waa wax dhab ah waxna waa kaftan sax wixii anagu annika la qaban karo waan la qabanay laakiin ninka dhimay hadii la aakhir la tago aakhir way hada ma aha adduunka oo ninka sanaawi aha oo la wado oo meel loo sii wado oo lagu farfiiqo dhan nimankaas waa nimanka saaxiibada aha diintan waa sheegaysa hadda ninka saaxiibada ku tiidin aakhirna kullu sumeel baan noqonaysa maxaan ka samaynaa waa raacaysa balukaadu adigu wariya waad kibirteen wariya miyaadan ahayn nimankii aanu intaanu ku soo dhaweynay saanu soo dhaweynay oo nageel u qalay oo isbitaalka u kilin garaynay toddobaadka ku qayilahayay soo matiin ruux kaftan buu ahay dhageyso waxa dadka soo dhaweysay aqeedada maraysa aakhira maraysa soo dhaweysay waxa ana guriyeen noomayda dhisay waxba noomayda sameeyay guriyuhu way socdaan wali dhismaa ku socdo adigu diinteeda haystaa saadaba ukaadi maxaa ka galay diinteeda haystaa maxaa diinteeda ka galay soo dawlad deegaanka horumarka hana qaaday soo mani deegaanka ukaadi horta adigu diinteeda haystaa oo inta la yiraahdo jidad saa u bixino 70 aanu saa u bixino waxaanu ka abuurnay 70 waxa ka high school waxaanu ka abuuray 4 milyan oo arday baa daroortay horumarku ma aanan weydiina diintee haysataa waraa waxaas waxaan usii odaga laga qabo inaa yaro horta su'aashayga jawaab meed ka tagaa waxba aan tagin su'aashu nooga jawaab bas gormaas bedeshay waxna waa kaftan gormaas bedeshay horta adigu maxamed maxay gormaas bedeshay nimankii Soomaaliyeed ahayn aan soo waxaan u taxsiin waa nin taxsiin hadaad maqasheed waa duco iyo wax la socda adigu waxaan ku weydiiyay iga jawaab su'aashayda la aakhira la tagay si fiican oo hadda anagu dad diin baan leenahay aakhira la tagay waxaan ku cararnaa adduunka waxaan ugu qaban karnaa waa lagu qabanay lacag aakhira la tagay ninkii oo naar loo sii wadaa nala tus zanaawi oo meel xun loo wado ilaahay qadaray sultaan adduunka saaxiib baan ku ahayn horta adduunka saaxiib baan ku ahayn waxa la yiri ninkii isaga waa uu soo farfiiqay nimanka saaxiibada kuwaas hadda goorta anagu wali maan dhimanne maxaan uga samaynaa maxaa adiga aakhira ku geeyay horta adduun baan joognaa horta aakhira maxaad noogu kaxaynaysa haddaanu joognaa maxay tahay aakhirada noo geynaysa waxaan raadinaysay ukaadi waxaan raadinaysay soo duca ma war baan idinka geynay may waan ku ducaynayna ducada qaaba ku ducaynaa duceeyo toddobaadka dambe waa inaad baroordi qabataan horta anigu waa u duceeyay isagoo nool ducada ma dhageysanaysaa u duceeyahay waxaan yiri mala soo kumbalaayo kumayaala balaayo kun lag oo ah balaayo oo guryahaaga ku kooban ilaahay kugu keen abaha allash laakiin ilkoo dambaan ku soo noqon isagoo nool baan u duceeyay anigu waa kaaga dhamatay gurigaagii qabyada ahaana waanu xiraynaa isagu ma ku agtay laga anagu lama qabo idinku okay baati wali anagu jawaabta hadda markaad aakhira markaad taas aan ka baxno taan baan ducada ku dama laakiin la ka garbaayno diinta aan haysanay diintu haysay waxyaabo badan ma isbedelay meesha ma aha iska ducay ma waxa ku yiri horta nimaga nolol fiican oo ku nooshiin aniguna horta xagga waa ku baabay waad aragtaan dhiikar iyo dhasatiriyo iyo cudur walba horta xagga waa ka soo qaaday waxa gartaa kowde meesha nabad ku nooshiin bal ninkan bal adiga okay haddaan ka waran anigu aan xaggan iska dhiibo oo sheekada baan waxayna ka waran ma maanta dhan maxaan daba dhibay sanaawi haddaan aakhira ku arkay sabarad baan la dhicba hadda dil loo keentay adduunka aakhira inta la gaaray adiga tururta adduunka kala tag buugan iyo bahaladan ilaahay qaato laga bilaabo maanta halkan ku jiraa waanu xoreysan dhulkeena maxaana baabi'in baraay ha farfiiqdo gaal la ha fiiqo inta aadan isdiibin inta aadan isdiibin erayaan ku iraahdo orod soo istijodo 14 jeer shahaado ilaahay u noqo adigu miyaad soo istijodo abaha la gubiye gaal dale adigu istijood maantay fiir laga bilaabo maanta halkan waxaynu ka aasaasi doonaa ninka uu isdiibaya jaalid aagu waan isdiibaya anigu hadda idinkuna sidoo kale kuwa dhamadan iska nooleyaasha kulli waxaynu ku darsamaynaa maadaama adigu aad naga weyntahay oo nin safiirka la u jooga tahay la dardaar ku ana idin la dardaarmi qolyo waxa la soo sheegay guri mugdi ah isku xiray oo baroortay oo sanaawi u duceeyay habeen dhan oo guri mugdi ah ku dhamaaday qolyaha waxa leeyahay la sheegi maayo kaadi هذا روح خريب dadkaasoo idil waxa weeyaan dadkaasoo idil waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan jaaliyada Soomaalida ogaadeenaya iyo ururka dhalinyarada midowga dhalinyarada ardayda ogaadeenaya oo halgankan hana qaaday ay nagula soo muxuu ahaayeen iskula biirsano sidaasna inuu ku xoreyna dalkeena hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah
sidaa weeye ogaadeen xorooda dabaqoodhi ha dhaco